بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa taariikhda Soomaalida inaan wax yar ka taabto. kulay dad fara badan Soomaalida way ku wareersan yihiin. nin baan maqlaay habeen hore dhahaya nimankan oo Saransoor leeyahay ma ahan Soomaali ma aha oo waxay ka imaadaan meel kale. kulay anigu kuwaas ay ma garanay laakiin ninkan taariikhda Soomaalida wax ka yaqaan ma ahayn. Soomaalida markii wadanka la imaaday dadna waa looga imaaday dadna muhaajiriin ay ahaayeen oo wadankii ay soo galeen dadna ansaar ay ahaayeen oo wadankii ay dad ku soo dhaweeyeen sidii hadda markaad fiirisid wadanka Soomaali ayaa la yiraahdaa Soomaali isimkaas waa magaci Soomaali rag Soomaali la dhaha jirtay raggaas looga imaaday wadanka sidii hadda nimanka Saransoorka la yiraahdaa abtirkooda saas u wadid waxaad galaa maaragtay ganjarta gardheera Soomaaliyaas galaa sidii hadda nimanka ajuuraanka camal ajuuraanku waa nimanka wadanka looga imaaday ayakana sidaas oo kaleeta waxaas galaa maaragtay Soomaalidaas galaa nimanka la yiraahdo garaha maaragtay ganjarta gardheera Soomaaliya galaan nimanka hawiyada la yiraahdo Soomaalida ay galaan laakiin laba ciidood ba maaragtay aan Soomaalida galaynin labada ciidood oo badan aan Soomaalida galaynin waxa way dad fara badan oo Soomaali galaynin waa jirtaa laakiin qabiilaha waaweyn markaan ka hadlo oo hadda ayaka Soomaalinimada maaragtay inay wadanka Soomaaliya toodo tahay malaynaya oo sheerka qaat sidii hadda midalan Isxaaq oo kaleeto Isxaaq waxay ahaayeen waa nabiga Isxaaq ay ka soo jeedeen wadanka Syria ay ka imaadeen nimankaas waxay ahaayeen niman reer Bani Israa'iil oo muhaajiriin oo soo hijrooday oo markay soo hijroodeen ka bacdi laakiin dad muslimiin bay ahaayeen waa nimankii oo islaamka dadka soo gaarsiiyay waay ayagoo wadaade oo diinta islaamka haysta oo reer Bani Israa'iil saacada ayade diinta nabiyullaahi Ciisa ayay haysteen diinta nabiyullaahi Ciisa niman reer Bani Israa'iil oo marka ayade diinta nabiyullaahi Ciisa haysta ay ahaayeen waqtigan ka hadlayna waa intuu nabi maxamed soo bixin ka hor لأنه واحد أكسونتا سوماليا وحي جرتي أنتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم waxaad ku arkaysaa magaalooyin fara badan sidii hadda magaaladan oo badeeda la raadinay oo Soomaaliland ku taala markii nabiga kaleey salaatu wasalaam as u dukanay dhinacanaytay oo Baytul Maqdis xageed meeshida loo dukun jiray qiblatayn aad leeyahay hadda markii dambe aayadii ay soo degtay فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام مركي سو دغتينا hadana qiblada waxa loo joodi dhinacan oo masjidul haram xageed marka masaajidka qiblateen ayaa la yiraahdaa zaylac ay ku talaa dadkii arkay way arkeen dadkii kalena way maqleen marka niman kale oo carab toos ah jira Soomaalida hadda nimanka hadda Soomaalida way carab ay galaan asalkoodii hore marka nimanka hadda Ismaaciil kale leeyahay Ismaaciil maaragtay waxa loogu yeeray Ismaaciil nabiyullaahi Ismaaciil ma dhalin laakiin farci nabiyullaahi Ismaaciil ay ahaayeen marka waqtiyada hore sidii hadda midalan ninka loo leeyahay habar gadir waa duqo waqti hore dhintay waay sidii loo leeyahay ma jarteen waa duq waqti hore dhintay waay ogaadeen waa dad hore dhintay dagoodiye waa dad hore dhintay laakiin Ismaaciil ayaa dadka ayay ku abtirsan jireen marka saasa loo dhahay nimanka waa Ismaaciil nimanka Daarood Ismaaciil sida loo dhahay waa sidaas marka waxay ka yimaadeen ayagana Syria laakiin wadanka waxa sii joogay oo looga imaaday nimanka Soomaali la yiraahdo Soomaali hawiyaha iyo nimankan kala oo la yiraahdo ganjarta gardheera Soomaali waay taariikhda gadaal dadka inay u fahmaan loo baahan yahay waa nimankan Isaaq waxay ahaayeen nimankii imaaday dhinacan oo reer Bani Israa'iil xageeday ka imaadeen diinta islaamka ayna wadeen saacada ayadeed nimanka oo saacada ayadeed diinta islaamka waday ahaayeen maantadan waxay leeyihiin waxaan yahuud way ninkay la dagaalamayeen saacada ayadeed reer Bani Israa'iil 12 wiil bay ahaayeen wiilkii maaragtay cadowga noqday oo nabiyullaahi Yuusuf ceelka ku riday yahuuda waay waa wiilkii yahuuda ahaay waa midkii maaragtay oo ugu dhibka badnay waa midkii maaragtay Ilaahay ka hadlay
أوضح مارت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ونمك دهن أنك وحناني أبناء الله وأحباه أنك وحناني وليش إلهي يكون لو جعل يكون إسدان أفكار وحيكون يرادان the anointed people of God مركان نمك أيك واي ودتك وريريين ومارتي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني إلهي مركو الله هذا الإلهي مارتي يصرف أيام واي نمك أيك ونمن إلهي لا ترتمي ترتن وحيكون جران إلهي سبحانه وتعالى ونمك دهان إلهي موحد ترى حد الساعة ما أنت لجوجو وهكذا دعسن عالم كردن إن أيك قعنتك وهايان شرائع عالم كان أيك أي ديجيان ننكي ربان أي دلايين ننكي ربان أي نوليان تاسا كذا دعسن مركان نمك أيك إن الاعتمادية معها وهي اعتماديان نمك هذا وحيدين مارتي أنا اعتراف وحن كرمناه يهود ورأيك اعتراف إلهي باقوها اعتراف سوماليا بتهيه ودن بو إلهي كسيه وقت هراء يادو مارتي حداتا إساق وودلتي نعم لكن إن لغو اعترافه أو يهود اسكو اعترافه معها وحتى إنين ريبنو إسرائيل لماذا دي جوك لكن هدين أنيق يهودا أيانا يهودا متهد ويليش ريبنو إسرائيل مارتي مت كمد أياد هيت لكن متك يهودا أهاي ما هن يهودا كي عدو كوكو هاي أو أباها يوسف أوغا موسى مارتي أوغا كلا داود dadkaanaytii dadkii la dagaalamaya ay hayeen marka waxa loo baahan yahay nabiilay ciisa maartay asaa oo kaleeta wuxuu kamid yahay reer bani israa'iil liana hooyadiis ayaa ahayd maryama bintu imraan ayaa ahayd reer bani israa'iil markaan dadkaasaytii dadka la dagaalamay wayaqtuluuna al-anbiyaa bighayri al-haqq dadku ilaahay ku yiri anbiyada xaq la'aan ay ku dili jireen haddana awliyada ilaahay laayaan oo culimada ilaahay baabi'iyaan diimanka baabi'iyaan masaajidadii dudumiyaan waa nimanka ay ka waay waxay u dhasheen maartay madax adeeg oo ilaahay la tartamayeen waa nimanka cadaabka asmaqasheen loo hagaaji waay cadaabkaas maqasheen oo xanuunka badan ilaahay dadku u hagaaji waay ilaahay adduunka in la joogeen mar hore sii sheegay nin walba dhiman doona markaan anigu waxaan la hadlayaa reeb nimankaanaytay oo isxaaqa ah waxaad ogaatiin in aad wadanka idinka waqti horena aad imaadeen oo niman hadda maartay oo Soomaali kamid ah aad tihiin laakiin dhalashadiina reer bani Israa'iil aad heedeen reer bani Israa'iilka islaamka ayaad heedeen lianna Israa'iil waxa dhalay Ibrahim nabiyullah Ibrahim alayhi salaam ayaa dhalay ma kana Ibrahim yahuudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin nabiyullah Ibrahim ayani yahuudiye mana ahayn نصارى مهن ونن كريستيان مهن بل وحوها حنيفا مسلما نن او اسلام نمد اي دبكتahay او اسلام نظيف ايو اهاي وما كان من المشركين مشركين تنا كمد مهن الى ملك وحو كليهي واتبعوا ملة ابيكم ابراهيم حنيفا راعى ابين ابراهيم دينتيسا حنيفك ايه ظاهرك الراعى تاسال ليه marka dadka waa inay fahmaan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaka meesha ida makani diji bini aadan kale oo ictiraaf ka rabaana ay jirin maanta ay dadkii shacabka ahay ay ictimaadeen yahuud oo ictimaadeen intaan ay muslimiinta laynayin ay ku faaneen oo ay ku faanaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay sabraan ilaahayna maartay maalintu uu qadara nasridiisa iyo gargaarkiisa ku siinaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaalada ha isku dhiibina haddaad waa dhiman doontiin hadday dhimasho tahay waa la dhimanaa laakiin lama wada dhiman doono maartay ha ku dhimanina idinka oo maartay gaalada raacsan oo le nimankaasay taayaan guursanaynaa nimankaasaan nahanay aan idin deceive garaynin you should be very careful intaas baan idin sheegaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh